السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات بين البوجوغان وحان إذن لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحان نكسو قد بنا يا قصة عجيبة وقد على ذلك برازيل ويل إيجور وصاحبها وآديات اسكو جعلا نلاشو ذكو خنعسنا اسكو فرحسنا هيا واحد أحمرتي قصة عجيبة runtii gabadha mar walba waxay ka fikiri jirtay inay saaxiibkeeda nolosha ku qanciso oo farxad ay siiso balse waxa soo dhaxgalay arin cajiib ah oo cid kasta ay la yaabtay arintaas maxay tahay runtii gabadha iyo wiilka in badan ay wada socdeen balse mar walba ay gabadha tamacdo ninka saaxiibkeeda inay nolol la qaadato ama ay guursato waxay dareemi jirtay xanuun xagga nafsiyan ah وخذت نفسي خوف أي هاي سوكلا أما خوف جودها كحنوصن أو كلا أي نخونيسي مرور بوحي نخونيسي خوف لبعتيسن بلس ويلك علاس كاس مدري مجرين واي خوف كحنون كهاي مرور بقرته وقدام بين لكن وإسلا كرتين إن كان وحنوصن جودا أي حنوصن تاي نفسيا أو حنوصن تاي مركا وحقوق تجي ننكي جودا صاحب كلاها حقوق تجي ننفالي أم السحرولة أيو تجي وحده قاعد السيدة ويحنوسن تهاي مركي أنجور أرمى جور أنصاه هذا الخادنو ويحنوسن يسا ويدجال ما يسا مركا وحندونينا إن أرنتاس أضحنا جي خوتي ما دامت عذر نفسيا نفطة وحد كجرني سد أو لواتذا نفسيا قد عفمات كود أنت بدن قد علم أولاده كذب وحد على نكي أو سحر لها مفعللوجها حوده جودنا نيجي يكون داوينا يه waxaa laga rabaa in aad labadan jaanis nasiisid oo iyadana aniga ay dhaaftid jeeda kalena 5,100 oo doolarka Mareykanka ah aad bixisid lacagtii shubtid aniga waxaan ku balan qaadayaa gabadhan in dhibaatada haysato aan ka saaro si ay caafimaadkeeda okay u noqdo runtii ninkan uu aaminay waayo mar walba waxa muhiim u ahaa in gacalsiis ay caafimaado lacagtii ayuu shubay wuxuu dhahay hotel ka soo horjeedo ninka meesha faaliyaha meesha uu degan yahay hotel ka soo horjeedo ayuu gabadhii iyo asigba ay degeen wuxuu dhahay habeenkii marka ay gaarto bartanka ama habeenkii saqada dhex markay gaadho gabadha ii keen wax baan ku akhrinayaa sidii sixirkan iyo jinkan dusheeda saaran aan kaga suuliyo sidaas aawadeeda wuxuu u keeni jiray xili walba xiliga dambe ayuu keeni jiray waxbuu ku akhrin jiray gabadhii markii waxyaabahaas oo kale uu ku akhriyo way miir daboolmi jirtay kadib wuxuu dhigi jiray orod qaad oo hotelka ku celi asiga culays kuma ahan ilaan gacalsidiisa in mar walba uu xambaaro uu guriga ku celiyo wax dhibaato ma arki jirin mar walba wuxuu dadaal ku bixin jiray in gacalsidiisa caafimaadkeeda uu ka shaqeeyo ninkan faaliyahana mar walba wuxuu culays ka saari jiray gabadhan sidoo caafimaadkeeda ugu shaqeyn lahaa ninkan waxa muhiimadiisa aad gacalsiisna uu caafimaado kadib in muddo markii arrinta socotay waxaa dhacday gabadhii markii xanuunkii nafsiyan uu ka caafimaaday ayaa waxaa dhacday gabadhii waxay u badatay ninkan oo faaliyaha ahaa waxay iska dhaadhicisay mar walba ninkan inuu caafimaadkeedaba hayo annaga haddaan dad muslimiin mar walba waxaan aaminsanahay inuu caafimaadka Ilaahay hayo ay dadkan gaalada mar walba way naga wajid duwan yihiin way naga dabeecad duwan yihiin gabadhan waxa ka dhaadhacday inuu ninkan yahay caafimaadka ayada helayso inuu asiga sabab u yahay iskama dhaadhicin amana ka dhaadhacsaneen ileen waa qof aan muslim ahayn iskama dhaadhicin mana ka dhaadhacayso in caafimaadkeeda Ilaahay uu hayo oo mar walba caafimaadka Ilaahay bixiyo kadib ninkii faaliyaha iyada kulankooda ayaa batay saaxiibnimadooda isku soo dhawaashooda ayaa batay meeshii waxa dhibaato ka soo weerartay ama dhibaato ka soo gaaraysa ninkii iyada jeclaa ee waqti ku bixiyay ee lacagta ku bixinayay ee mar walba jeclaa caafimaadkeeda ayaa dhibaato meesha ka soo gaaraysa waayo mar walba wuxuu arkayaa in ay mar walba kaga sheekeynayso ninkan ee faaliyaha ah mar walba wuxuu arkayaa in ninkan arimiis ay kala hadlayso ay dhayso ninkaas waa nin wanaagsan ninkaas waa saan waa ninkan waa sida mar walba hadalkii uu dhibay wuxuu isdhahay naagtan waa wala gala wareegi rabay dhaqsi inaad guursatid wax ku dhaama male ninkan guurkii ay u soo bandhigay waxay dhahay guurka hadeer ima dhibayo caafimaadkii waa tamaam waxaan doonayaa in guurka dib noogu dhigto naagtan go'aankeeda wuxuu ahaa ninkan faaliyaha ay wax kale ay ka aamintay in ay guursato
laakiin saaxiibkeeda umaysan sheegin dhibaatadaasna waxay noqotay wax asiga dhibaato ah oo dhibaato fara badan ku keeni kara arintii siday u socotay waxa dhacday ninkan wuxuu ogaaday faaliyihii iyo saaxiibadiisa in ay noqdeen dad saaxiibo isku dhow ah oo mar walba ay kulmaan asigoon ogeen iyo asigoo ogba inay la kulanto ninkaas faaliyaha ayuu ogaaday wuu ku xanaaqay wuxuu dhahay waxaad doonaysaa inaad mustaqbalkeena aad burburisid ninkaas xuna saxiroolaha ah ayaad doonaysaa inaad adiga noloshaada u heweysid oo adiga asiga aad la saaxiibtid mar walba asiga aad la socotid aniga adigoo saaxiibo ah oo intaan soo wada soconin waxaad doonaysaa inaad wadaci la iga dhaqaaqdo balanteen sidaas u dhahay kadib waxay ku qancisay inay ninkaas dan iyo xaaje ka lahayn oo asiga uu yahay lambar 1 ka ay jeceshahay oo nolosha asiga ay ka fiirsanayso ninkaasna uu yahay nin caafimaadkeeda ka shaqeynaya oo kaliya aan wax dan aysan ka lahayn balse laakiin kelmaddaas waxay ahayd kelmad been ah oo asiga ay ku qancinayso waxa dhacday ninkii faaliyaha ahaa iyo gabadhii isfahan weyn ayaa dhaxmaray ugu dambeyn waxay go'aan ku gaareen in ay isguursadaan ninkii kharashka badan kaga baxay caafimaadkeedana ay wadaci kaga dhaqaaqay waxa dhacday ninkii faaliyaha ahaa gabadha guur ay iyada ayaa soo bandhigatay intuu asiga soo bandhigan iyada ayaa soo bandhigatay waxay dhaday waxaan doonayaa inaad guursatid kadib guurkii ayaa la isku fahmay wuxuu dhahay hadii ninkaas saaxiibkaaga ah uu xanaaqa ka war waxay dhaday ninkaas aniga dan iyo xaaje kama lihi adiga caafimaadkeeda ka shaqeeyay adiga ayaan ku jeclahay waxaan doonayaa inaan adiga ku guursado kadib ninkii uu ka ogolaaday gabadhan ileen wuxuu ahaa nin asiga jaanis raadis ah gabadhii wuu guursaday ninkii saaxiibkeeda ahaa arintii wuu maqlay wuxuu dhahay hadii aad khiyaantay mushkilad ma lahan waxaan ka rabaa wixii qarash aan igu ka baxay ha noqoto saaxiibnimadeen ha noqoto intaan adiga wada soconay ha noqoto waxaan doonayaa qarashkii ka baxay inaad dib igu soo celisid si aniga nolosheeda dib aan ugu dhisto maadaama ninkan faaliyaha aad jeclaatay noloshaada asiga ku dhiso asiga qarash walba ku bixiyo aniga qarash kuma hayo waxaan ka doonayaa inaad adiga qarashkii ka baxay isiisid gabadhii arintii iyo wax gudsigii ay ka xanaaqday ninkii wax isku dayday in ay dhibaatayso balse laakiin ma dhibaateyn karto waayo ninkan xaq ay u leeyahay qarashkii ka baxay inuu dib u helo waayo naagtan caafimaadkeeda asiga ayaa ka shaqeeyay idan nin kale inay ka raacday go'aan ku gaartay bas arintii markii sida halkaas mareysay waxa dhacday ninkan faaliyaha ahaa wuxuu is dhahay arintii xaajada meel xun ay mareysaa ugu dambeyn ninkii saaxiibkeeda ay ka soo qoftii saaxiibkeeda ahaa ay ka soo carartay ayuu wuxuu dhahay naagtan aniga ma doonayo iyada ay doortay aniga ma dooran marka waxaan ka codsanayaa adii saaxiibada inaad isku noqotaan anigana aan ku fasaxo si xaajada ay meesha ama arinta meesha ugu dhamaato wuxuu iska dhigay nin wanaaga ka shaqeynaya balse laakiin wuxuu ahaa nin khiyaamo hoos ka wata uu rabo inuu qoyskan ama dadkan inta muddo soo wada socday inuu madax isku geliyo ayuu rabay ninkan markii uu fahmay ninkii oo arinta uu fahmay markii uu fahmay wuxuu dhahay aniga waxaas riwaayada say dhigin gabadhan adiga ay la wareegay waxaan rabaa in arintan aad meel iga soo saartid ama qarashkayga 5000 iyo boqolka iyo soo celisaan markaas hadaa doontaan meesha doonta isla taga waxaad doontaan isku sameey idinkeeni taala gabadhu ku adkaysay waxay dhahday waxaas ma jiraan wax lagu cilaana ma jiraan adiga markaan aniga oo in badan kula seexanay ama wax walba aan ku sameeyay adiga qarash ma igu siinaysa ilan dadkan gaalada markay saaxiibo yihiin wax walba isla sameeyeen wax walba waa dhaxmara marka waxay dhahday aniga waxina dhaxmaray ma qarash ba igu siinayso gooniya jirkeyga markaad saadanta ugu raaxaysanaysay ma qarash ba igu siinaysay kadib wuxuu dhahay qarash kuma siinay laakiin adiga markaas xiriir naga dhaxeeyay xiriirka dadku ka dhaxeeyana sharciyan waa caadi markii loo eego dhankan gaalada waa anaga waxna dad muslimiina waxaas badaas ma gali karna laakiin iyaga xaqooda waxay ka tahay wax caadi ah ninkii inaad markay saaxiib yihiin wax walba inay dhaxmaraan waxa uu caadi ah oo aad iyo aad ay ugu dhaxmaan mar walba inay wada xiriiraan wada raaxaystaan wax walba isku sameeyaan oo dabeecad ay leeyihiin kadib ninkii wuxuu dhahay adii xaalad sidaas tahay anigu waxaan idin tagayaa sharciyan la teegsanayaa maxkamad ayuu tagay arintii ayuu u sheegay wuxuu dhahay nafsiyan ayaa la dhacay ninkan faaliyaha ayaa saaxiibadeeda iga dhacay markuu daaweeyay kadib xiriir ayuu la sameeyay anigana isma dhihin ninkan ayaa wax kugu sameyn doono
ugu dambeyn gabadhii asiga ay laga wareegay waxaan doonayaa ama gabadhii ama magdhow ayaan doonayaa awal wuxuu raadinayay 3,000 iyo boqol laakiin hadda wuxuu dhahay magdhow ayaan doonayaa ugu dambeyn maxkamaddii arrintii markii caddeyn ay u heshay ninkan in gabadhan markii hore inuu daaweeyay oo qarash ku bixiyay kadibna ninkan ay la saaxiibtay guursatay waxay noqotay in qoftaan ay nafsadiisa khiyaamaysay sis aawadeeda waxa lagu xukumay ninkii faaliyaha ah ama sixroolaha ah inuu bixiyo 25,000 oo doolarka Mareykanka ah 3 bil oo xarigana uu qaato marka waxaan la yaabay nin naag lagala wareegay in maxkamad ay wax xukumiso ayaan la yaabay waayo qisadan waxa soo qaatay dadka gaalada inaan isku dhaqan ahayn marna aan isku soo dhaweyn inaan idin socodsiino aan ogaano idinkana aad ogaataan anagana aan ogaano runtii waan la yaabay naag hadda sanadahan dambe anaga markaan Soomaali dadka Soomaalida dumarka waa iska Soomaaliyeed waa iska dhacaa saas ay taan wax dacwad la iska gudbiyo ma jiraan marka dadkan gaalada dhaqankooda waa gaar anaga dhaqankeena waa gaar marka qisadan waxaan soo qaatay in aan wax badan ka tusayo dhaqanka iyo kala duwanaanshaha aadkii aad u kala fog ee noo dhaxeeya anaga iyo dadkan gaalada ah marka waxaan idin tusnay ama idin la socodsiinay qisadan inaad ku tusaale qaadataan aad ku ogaataan waxyaabo far badan iyo kala duwanaansho inay jiraan diinta kaliya amniga ah ee wanaagsan ee xaq soo saarta inay tahay diinta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh